inay duraan quraanka ama wax ka sheegaan waxay yiraahdeen kitaabkan haduu yahay mid ilaahay xaqiisa ka yimid illa ilaahay waa mid wanaagsan waa mid aan cid la mid ahayn muxuu quraanka dhaxdiisa tusaale ugu soo qaadanaya kaneecada iyo duqsiga iyo quraanjada iyo xayawaanada yaryar xayawaanada yaryar xasharaad waxaan macna lahayn haduu kitaabkan ilaahay xaqiisa ka yimid waxa yaryar ka Allah u sheegay dadku baa aanu jeclayn uu karaahaysto Allah wuxuu xusay subhanahu wa ta'ala halkan tusaalahan inuu yahay mid ilaahay xikmadiisa uga jeedo ilaahayna aanu ka xishoorin oo sidoo wax shaqo dawaab abuuray mar haduu abuuray xikmada uga jeedo sidoo uga xishooday sirta ku jirta maroodiga ee nolosha ah ayuunbaa ku jirta kaneecada waa sirul xayaa sirta nolosha taasi ka simay marka sifooyinka ilaahay uu leeyahay waxa kamid ah sifada xishood inna allaha hayyun kareem nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri xadiidkii saxiixa ilaahay waa mid deeq badan oo xishooda oo adoonkiisu haduu gacmaha kor u taago ducaysto bariyo ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo gacmihii oo maran kullu wuxuu ugu soo ridi marka sifaadka ilaahay ay kamid tahay inuu maaragtay yahay mid xayiyo xishoonaya laakiin xishoodkaasi baa ka duwan keenu waa mid qajilaad iyo qabandhacyo ku jirto iyo sin noqosh ilaahay malaha subhanahu wa ta'ala kaasoo way naga duwan مثلا ما بعوضة فما فوقها تصاروه دون أي سمين يا كناعة يوحي كسيوينا أما كناعة يوحي كسيام كناعة تصاروه كنجا يستعي بشيئا وارك يرين كلام dadkii qolo waxay ogaadeen inuu tusaalahan xaq iyo way humeeyeen waa muuminiinta qolona waa kuwan ka hor yimid oo waa gaalo way ku gaaloobeen laakiin quraanku wixii uu sheegay qofka qaata ee uu hogaansama uu hanuunay wama yurilu bihi illa al-fasiqin qofka diida waxiga iyo wuxuu sheegay waa faasiq ilaahay uu ka fogaaday bahashan la yiraahdo kanaacada ee nimankaasi ay xaqireen ay yiraahdeen quraanka dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha ajaayib waxay leedahay ajaayibkeeda inaan wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana ajaayibka imika laga arkay markii daraasadaha la sameeyay ee qalabkan horumarsan ee mijarada iyo microscope-yada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo waramayna ama mucjisnimada quraanka ee loo yaqaan al-i'jaaz al-ilmi icjaaska la xiriira xagga cilmiga iyo horumarka quraanka uu ka sii waramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kanaacadu iyadoo ah xayawaanka yar ee sidaa u yar haddana waxa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahay oo marka u horeysa ay weerar nagu hayso hay'adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa uu sababaa basharkii adduunyada ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaa sabab u ah si bar caafimaadka loo horumariyo dib loo eego waxaan malaynayaa 2014 meelaha inay taqriiban daraasadii ka dambeeyay ma hayneen ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kaneecadu ka dishay 750 kun oo qof halka sheekay adduunyada dadka ku nool kaneecadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kaneecada noqotay xayawaanka adduunyada basharka dilay ee khatarta ku haya kaneecada yar ee leeydi maxaa tusaalaha loogu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750 kun oo qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu istilayaan uu noqday 437 kun oo qof waa khatarta dadku isku hayeen iyo dadka caalamka ee hubka sitee adarkaysa la ku waxba iska gaba harin inta kaneecadu dishay ayaa ku soo laabnaysaba way sii wadeen waxay yiraahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaariinta oo kale maska iyo adeesada iyo sunta badan iyagu 100 kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka ayda khatarta badan miciyaha waaweyn ilaa 5 kun oo qof bay dad ka dileen tamaasiixda bahalka uu ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan wadaalkan xaaska la yiraahdo kun qof baa ka dilay sanadka marka halka maxaad ka aragtay هاشي الحقيقة ولا هو يبين
iyadaa haysaa khatarta weyn ta waxtishaawada digabayna iyadoo cajaay dhiigga dadka ka muudsata oo inay waxanta samaysay ku rinto ayaa taasi sabab u tahayba kuweeda ragga ahi way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo waxay ka cadaan laakiin tadadigun baa laynagu saliray qalabkan daraasada lagu sameeyay markaa mutatawirka ah waxay yiraahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhood wax badan la yaabtad ku arki laakiin awoodii ilaahay bay noo muujinayaan waxaas afkana waxay ku leedahay 48 ilkood inagu intaynu ilkaa leena ilkeen waa misna tirse wari ilkaaga 2 meelahaas way iyo 48 way dheerta waxay leedahay 3 wadne mid kula hadaad adigu leedahay haduu istaago ay ku dhamaanayso iyada 3 wadna isbedelay waxay leedahay sidoo kale sakaakiin 6 ama khartuumkeena ay gafuurka ay waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyay marka ay qofka bani aadamka ay doonayso inay soo weerarto aad u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysaa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa marka halka inuu qof hurdo waliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa waxa musawwada ilaahay uu siiyo shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiigga meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyay inay wadato qalab badan oo cusbitaaladan casriga ilmo bani aadam aan haysaninba oo shaybaara marka qofka kolka u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiiggiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama dhiiggiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysana adigu caawa kanaacaad ka cabanaysa sidee wuxuu ku leeyahay kanaacadaad sheegaysaa maxay ahayd fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiiggiisa marka dadku waa ku weeraa aniga dhiigayga macaano kanaacadu dimadayso iyo aniga dhiigaygu qaraariyo kanaacada ima taabo markay qofka doonaysa inay durto waxay ku sameynaysaa takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama sooxiyo way ku sooxinaysaa markaasay dhiigina taxliil ku sameynaysaa markaasay tamyiicna ku sameynaysaa tamyiicu waa maxay dhiigu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari kara dawadaana way ku daraysaa markay ka dhamaysato ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysaa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysaa sida malaariyadii markay iyadu ka dhamaysataa bay ku sii daynaysaa si aanad miskiinka iska hawaaraad tahay aan dhiigii yara kaaga daabanin dhiig joojina way ku raacaysaa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa marka wixii ay ku shubtay ay ku suuxinaysa ayaa markaa baradkan iyo waxaan keenaya way ka dhamaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cununayso in ajaa'ib ilaahi bay ka mid tahay ajaa'ibteeda waxaa ka mid ah noocan ilaahda jinsigeeda ilaa 35 qaybood weeye noocyadeeduna ilaa 3000 meelahaas ay gaaraan waxaa aad u layaab badan cilmiga casriga imika waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan isu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yiraahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilma qabatiya oo ay xambaarsan tahay taas waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa wuxuu talo ilaahay ugu haray ilaahay baa garanaya inaga waa inaynu xambaarsanna qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna caloosha ku sidanaa wata lagu leeyahay qofka bani aadamka calooshiisa waxa ku jira xataa bakteeriya u baahan yahay oo dheefshiidkiisa ka qayb qaadanaysa Soomaa marka xayawaankaasi ama xasharada yaran microscope lagu arkayo waa isxambaarayna dusha ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin culimada qaarkood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon karo famaa fawqaha marka macnaheedu waxa weeye ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuubatan kaneeco famaa fawqaha iyo waxa ay dusha ku sidato ilaa wuxuu diidayaa mid jira in lagu fasiro haddii wixii dusha ay ku sidato la helay oo xasharaadkaas marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan arkaysaan kaneecada ilaahay tusaale idin ka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaale ka dhigaya المهم intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awoodiisa uu leeyahay
marka waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulayay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aad u waaweyn marka awoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee aynu ka arkayna kownkan iyo xayawaanada ayuu bay taasina ka mid tahay wahada ma aquluhu wa astaghfirullah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam